dagaal kasta wuxuu leeyahay meel uu ku dambeeyo dagaalkan hadda Iran iyo Israa'iil u dhaxeeyo xaguu ku dambeyn doonaa horta si aan u fahano dagaalku wuxuu leeyahay dagaalka soo dhaca falsafad buu leeyahay dagaal ma dhaco bila falsafad dadku waxay mudan iska dhaco iska ma dhaco dagaal walba wuxuu leeyahay waan arki doonaa objective waxa dhada hadaf wuxuu leeyahay why لماذا محو دحاي wuxuu leeyahay kayf sidoo u dhici wuxuu leeyahay halkeen gaarina ma waxaan gaarina inaan cadowga tirtirno ma waxaan gaarina cadowga ka soo dhaadhicina geedka ma waxaan gaarina inaan miiska ku soo wada cilno dadka ma waxaan wuxuu leeyahay dagaal walba adduunka maanta ka dhacay falsafad buu leeyahay wad fahanteen Soomaa marka dagaalkani falsafadiisu maxay tahay dagaalkan falsafadiisu waxa weeyaan midigta fog ee Yuhuuda amba Israa'iil oo saddex qolo ah midigta fog ee Israa'iil waayo waa qolo wadaada oo siyaasiyiin waa la baroon laba waa qolo cilmaaniyiin oo siyaasiyiin la bartiri waa wadaado aan siyaasiyiin ahayn markay isku tageen falsafadoodu waxa weeyaan laba shay in ay bariga dhexe jirin awood la tartami kartaa